xilli habeen ah Maxamed oo ah kalluumayste ka shaqeeya xeebta magaalada Berbera ayaa go'aansaday inuu u baxo kalluumaysiga waqti dambe si uu maalintii dambe uga helo suuq fiican. Maxamed wuxuu arkay nalal dhalaalaya oo ka soo ifaya qarka badda. Waxa uu mooday in ay yihiin kalluumaysatadii kale, laakiin markii uu ku soo dhawaaday, waxa uu arkay koox dad ah oo ka soo muuqanaya biyaha, kuwaas oo aan lahayn dhammaad. Maxamed wuxuu isku dayay inuu ka cararo, laakiin markuu doontiisa u jeestay, nalalkii biyaha ayaa bilaabay inay isbeddelaan. Waxay noqdeen dhiig guduudan oo ku shubmaya hareerihiisa. Jinniyo badan oo wejiyo argagax leh wata ayaa ka soo baxay gudaha badda. Waxay bilaabeen inay u sheegaan Maxamed inuu yahay marti ay sugayeen. Maxamed wuxuu ka war helay isagoo ku jira god weyn oo ku yaalla hoosta badda, halkaas oo dad jinniyo ah ay ku xaraysan yihiin. Waxay u sheegeen Maxamed in uu yahay qofka keliya ee samata bixin kara, laakiin haddii uu fashilmo, isaga laftiisa ayaa ka mid noqon doona. Maxamed wuxuu bilaabay inuu ku dhaqaaqo hawlo cabsi leh si uu uga baxo halkaas. Ugu dambayn, Maxamed wuxuu fahmay in dhammaan waxa dhacay aysan ahayn dhab, balse waxay ahaayeen qulub uu ku dhacay sababta oo ah daalka iyo waqti dheer oo uu badda ku sugnaa. Waxa uu ka soo baxay xeebtii isagoo miyir doorsoon, naftiisuna dhibban tahay. Laakiin weligii ma iloobin wejiyadaas jinniyada iyo dhiiggii badda dhexdeeda uu ku arkay. Maxamed markii uu ka soo baxay xeebta, wuxuu isku dayay inuu gurigiisa aado si uu uga soo nasto wixii dhacay. Laakiin markii uu magaalada ku soo dhawaaday, wuxuu arkay dadkii magaalada oo ku wada hadlaya luuqad uusan aqoon. Guryaha qaarkood waxay lahaayeen astaamo yaab leh oo ah calaamado dhiig lagu sawiray. Qof kasta oo uu isku dayay inuu la hadlo ayaa indhaha ku dhuftay oo markaasna iska dhaqaaqay, iyagoo moodaya in uu yahay qof aan caadi ahayn. Habeenkii ayuu Maxamed ku hoyday meel bannaan oo cidlo ah oo u dhow magaalada. Markii uu isku dayay inuu seexdo, codad khafiif oo macaan iyo heeso qosol wata ayaa ka soo yeeray hawada. Codadku waxay ahaayeen kuwa u muuqanaysa sida inay dad waaweyn iyo carruur isugu jiraan. Waxay u sheegeen Maxamed inuu ku soo noqday halkii ay lahaayeen oo uu ka tagay caawa oo keliya haddii uu fuliyo ballan qarsoodi ah oo uusan garanayn. Maxamed isagoo weli aan hubin waxa uu sameeyo, waxaa ku dhashay go'aan geesinimo ah oo ah inuu la dagaalamo waxyaabaha ku hareeraysan. Wuxuu soo xusuustay inay waajib tahay inuu kalsooni ku qabo Eebbihiisa oo uu akhriyo ducooyin. Intii uu ducadii akhrinayay, waxa uu arkay iftiin weyn oo ka soo ifaya cirka, jinniyadii oo dhimanaya, iyo magaalada oo dib ugu soo noqotay sidii caadiga ahayd. Maxamed wuxuu ogaaday in cabsida aysan ahayn mid dhab ah ee ay tahay mid uu qalbigiisa ka qaaday. Maxamed wuxuu dib ugu laabtay noloshiisii caadiga ahayd, laakiin mar kasta oo uu badda aado, wuxuu dareemaa sidii in indho qarsoon ay ka soo eegayaan gudaha badda. Waxa uu ogaaday in sheekada aysan dhammaan, balse uu yahay qof mar walba u baahan inuu feejignaado. Dadkii magaalada waxay isku raaceen in Maxamed uu ahaa qof ku noolaa xilli qariib ah, laakiin Maxamed wuu aamusay, mana uusan sheegin wixii dhab ahaan dhacay.